la qabnaa ciddii kasta ee nabadgelyada ka shaqaynaysa inaynu ku garab taaganaa baynu xaq u leenahay dawladeennana allaha soo hadeeyey ila iyaga wixiiba gacanta ku haye mar alla markaanu bal gawaadhideenni iyo qorigeenni iyo inankeenni halka suuqa taagan oo aad odhanayso wartalowkan maadu aniga mid bay kaga jiro saakaanoo xamaam galay iyagoo hor taagan ayaa sarifkiiba kaga tago markaas ay war odaygu uu yar baxay maan bixino qorigaasay saaray baan ku yidhaa meesha la taagantii wallaahi kaandharina waydu ku jiraa baan ku yidhi waar bahalkan dhuunku naga haysaan iyo wadnaa belaaya ma jirta meeshiina iskaga haysataan waa dawladdana allaha soo hadeeyey iyadaa gardaran maan leena ka baqan mayne wallaahi iyadaa gardaran ma ninkii adduunkaba loo dhiibay madaxweynihii loo dhiibay baa isaga ku galgalanayee nimaan waxba haynoo meesha sugayana maxaad mood dawladdana waxaan leenahay allaha soo hadeeyey kuwanna innagaaba ka adage kuwan mucaaridka innagaaba ku filan oo ka adag waa kuwa amarka qaadanaya ee raggaa dhexdhexaadinta wada waa kuwa ka yeelay ee iska daayey bahalkii ay sheegayeen waxaan bannaanbaxan iyo balaadan iyo imtixaankana inaanu bislaanayno waxaan leenahay nabadgelyadana ilaahay haynoo adkeeyo raxmaadkana sidaa horaan la qabaayee haddaan roobdiin la rayn maayee roobkana ilaahay haynoo shubo ilaahay haynoo soo kordhiyo faataxa yalbaa halka ka hadlay ergaa lagu celceliyey nabadgelyada dawladda looga biqi maayo lalagana waanin maayo waxaanu mar walba ku celcelinaa ee aan mar walba ku taaganahay ee mar walba fariinta dawladda ka soo baxdaa waxa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo cuqaasha iyo madax dhaqameedkana waxaanu jecelahay dad waxaynu nahay casharadii iyo wax soo bartay inay noqono wixii nabadgelyo darrada iyo duruufihii nololeed aynu soo marray dad cashar ka bartay inay noqono waxaan jecelahay dadka bahashan iyo marxaladdan maanta aynu ku jirro siyaasad ka dayaya amba xusbiyeynaya amba qabyaaladaynaya runtii qofku noocu doona ha u noqdee waar dalkayaynaan gaarsiinin marxalad aynaan ku soo celin karin marxaladihii aynu soo marnay mid ka mid a dadkayaynaan geynin oo dadka inteenna xun ee dhadhagaalaha ama tuuga ama inta xun xumaa jecel leh xaalad aynu nabadgelyada gacanta ku soo celin kari weyno haddii ay naga tagto intaynu isleey ku ajaba dalka halka ayaynaa gaarsiinin dawladda iyo madaxweynuhuna erga kasta iyo talo kasta iyo wax kasta oo wax lagu hagaajinayo diyaar bay u yihiin labadan reer iyo labada ardaaya halka fadhina mid gaara baan sii oranaya hargeysada lagu sheegaya marka daanta kale laga tago waa ardaayada halka fadhiya waa isxaaq iyo ciidagale kala qaadi maaye magaalada inta ay qoladan nabadgelyada iyo mudaharaadka looga baqaya bustaha ay dul dhigteenna waa labada ardaa cuqaasha iyo odayaashooduna maanta halkani ku dhoyiin iyo odgaradkoodii war waxa aynu doonaynaa dawladdu nabadgelyo diidara ma ahee waxaynu doonaynaa waa nabadgelyadan cidna looga bari maayo cidna loo daba fadhiisan maayo cidna looga biqi maayo waxaan leenahay dadkeenna inteenna xun aynu nabadgelyada sidii aynu u ilaalin lahayn runtii aynu u wada joogi lahayn meel uga soo wada jeesan lahayn runtii aynu ka qayb qaadanno aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laga qaada qiimihiisa oo wax aanu u qalmin la keeno waxa sax ah in ay siyaasiyiinteenna iyo cuqaasheenna iyo salaadiinteenna iyo aqoon-yahankeennu mar kastaba ay noqdaan fii kulli maqaamin lahu maqaal meel kasta oo la joogaba hadal baa ku habboon halkan maanta waxaa ku habboon ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahayd ilaahay ha isu barakeeyo inankaa iyo inantaa isguursaday oo dhexdooda ha ka beero ubad khayr qaba oo barakaysan hana ka dhigay dhexdooda sida ilaahay uu yidhi mawadda waraxma laakiin haddii qolooyinkii aan ku yaro sayda maxaan ku dhaha siyaasadda ay dee iyagu dayn waayeen weligay kagama hadal maanta ka hor maantana ka hadli maayo laakiin waa yaraa taabanaya reerkii halkan joogaa daraad bay ahayd maalintii aynu ku jirray aanu ila dhaqdhaqaaqa samaynay waxa aan uga qayb galay in aan wax ka barto dadkayga waxa iiga soo baxay laba arrimood qabyaalad gaadhay dhuuxa oo daadisay oo ay ka dhex timi nacayb
يا عداوة ما أنزل الله بها من سلطان إسلام لماذا كفك كان بحسن كنفك سياسيين وها أي نقدين قار إيو إسخلافة إلهي بنا قرآن كيسينا وشاقي ولله يالا والنبي سيالا وهاي إسخلافنا هدا إسخلافتان ويدو فشلمي هدا فشلتانا ويدو نسوري نتيجتنا waxay noqonaysaa inqiraad ila baaboo labada arrimood bay iga soo baxay oo aan markaan dib isugu noqday anigu aan dawadeeda iri tolo maxaa lagu daweeyaa waxa aan ku iri niman xaafadaas oo aan wada joognay war waa qoslaysaan idinku halkaana waa laga cadhaysiyay tanna waynu wada joognaa qosl iyo cadho laba dhinac ka kala noolaad ka kala jirtaa macnaheedu waxa weeyaan nolol ma jirto war qosolka ula taga oo waxa ku qoslaysan kaga qosliya oo ku soo noqda xeradii rabbi subhanahu wa ta'ala oo inoogu amray nabigiisu inuu yiraahdo midkiina mu'min maaha oo iimaankiisu kaamil maaha inta uu naftiisa waxa uu la jecel yahay والله جعلانه يسغنا maxaan ku raahday waxa walaalkii wala jeclaanayo nabad geliyadu وبيسك nolosha الامن والايمان يدا ايمانك ka horeysa cid qurada ma ka masuul kama aha inay ilaaliso dhamaanteen masuul baynu ka wadanay nabad geliyadu maanta joognaa darada aynu joognaa laba kelmadood ayaa u aasaasa warmeesha 5 sanadood baa lagu doortay deeskiga tag taariikhdu markay dhamaataan ay soo sharax hadii lagu doortana termka kala dhamayso number 1 period waa sharci iyo qaanuun aynu leenahay laakiin ka aan taa doonayni waxa uu keenaa feebis farbadan oo kale war waxay noo qoran 10 sanadood ba inay mar furmaan axsaabtu way gaadhay waqtigoodii afurmaan ururadii halon looga hawlgalo sidee u qabsoomi lahayd laakiin labada aayadood yaan madaxa la isula dhicin oo aan laga faa'iideysanin in qofku shakhsiga ahi isagu uu ku dul noolaado mujtamaca iyagana madaxa isula dhaco waa arkayseen wixii ka jiray baantii dhaweyto inooguna filan maxaan ku raahdaa wacd iyo waciid 100,000 oo caruura baa maanta gelay maxaan ku raahdaa iskuulada reer baa ila jiiraan ah laba caruura u gelayay reerkaasi caruurta iyaga iskuulka ka bixiya waa reer liita oo tacbaan ah maanta waxay u diyaar garoobeen in ubadkoodii ay atan gareeyaan maxaan ku raahdaa shahaadadii imtixaankii shahaadada hadii maanta uu dhici lahaa mudaharaad mid tagi lahaayeen wala ana barlamaanka tagi lahayn wala qodax ba tagi lahaa wala halka la fadhiyo lahayn waynu wada leenay bahalka ayaanan anna mucaarad noqonin oo ala kayfkayga u qaadanin ninkii ugu horeeyay halka joogay agaasima ahana yaanu noqonin mutaxaddis ku ah dawladda oo yaanu isaguna indhabeelin anna aan indhaha furo isna indhaha furo waxaanay ku wanaagsanaysaa annaga ilmaadeerahe war maxay naga maqan war maxaynu dadka ka qaadanay waxaasay naga maqanayno xaq u doono war waxaasaynu dadka haynaayeen xaq u siino sallallahu alayhi sayyidina maxamed wa alihi wa sahbihi wasallam waxa la isku hayaa waa doorasho iyo waqti iyo time waligeedna way dhici jirtay in marka ay doorashooyinku soo dhawaadaan murada caynkan oo dhaca kuugu horeeyay ma ogubna ma soo jireen bahan si walba dariiqii lagu xalin jiray oo inta ka badan baa runtii jiray maantana dariiqyadu baa lagu xalin doonaa hadii ilaahay nafta nagu sameeyay filimaayo xisbaan dhowr 10 sano ku jiray 8 doorasho ka shaqeeyay dhowr iyo 70 shir baan ka galnay dhowr 80 shir baan ka galnay doorashada ugu dambeysay ee baarlamaanku si uu qabsoomo khilaaf taagna awgeed waqtigan imika isku soo beegmayna waa baarlamaanka wax way waqtigii xisbiyadu ka dhamaanay iyo doorashada madaxtooyada oo iyaduna muddada soo dhawaatay intuba isku beegantay wax kale dhibaatay runtii ma jirto maanta dadkeenana in u turnaaba wax walba ka muhiimsan islaanta suuqa tamaandhada yar ku haysata ama muuskeen ku iibsada ee habeenkii subaxiinta kala hada habeenkii ku xiray soo hesho caruurteedii ubadkeeda ku korsanaysa oo inaan biyo bilaash siinahayn
leer bilaashanaysiinahay laga yaabaa gurigeedan intaasoo arday oo wax soo bartay oo qalin jabiyo bilaa shaqo inay joogaan haddana inay nabadgelyo darro ay ka warwartaa xaq maaha marka horta cid kastoo wadaba horta waxa u baahan in taa laga fikiro oo taa loo tulo waxna waa kursi dhammaanteen ma wada fuulan hal qof baa fuulaya kii ilaahay qorana u imanaya wax umusha u dana ayaa ilmaha u dana wax inakina wadana nabadgelyo amni iimaan iyo Soomaaliland oo hor u socota golayaal iyo xisbiyo iyo runtii iyo shuruuc ayaan u sameeysan khilaafaadka kolba yimaadana inaynu ku xalino marka insha Allah tan isku dhamaan doonta waligeedna wala dhexdhexaadin jiray xisbiyada si wanaagsan baan u dhamaanaysaa meel xunna marimayso dawladana ina ka dooranay cod bay ku tagtay cod bayna ka qaadi karnaa marka ana waxa la tahay shicibka iyo inta kale runtii aan iyagu rool ku lahayna inay si wanaagsan u daaya cida kolba gacanta ku haysa arinta waxa ku soo ururinaya halkan beel ba fadhida beesha garxashis baa in badan laga hadlaa waa doorkeegi anu waxaan u soo joogay 4 jeer oo beeshu tartantay way 4 taba ay dhacday waana kursiga ku guuleysay haddii markale dadka qaar moodayaan 4 jeer bay tartantay beeshu 2002 iyo 2010 iyo 2017 oo 3 jeer halkana markii may 4 musharax baa waayay oo reer ka mid ah inuu kursiga madaxweyne gaadho anu waxaan qabaa tala xumaan gudeena ka dhashay ayaa runta kursiga in gaarsi weeyay Soomaaliland inaan nacba xaqna waanu leenahay waan iman doonaa laakiin wuxuu u baahan tahay aqal iyo garaad iyo garasho halkaan ku gaari lahayn inaan la iman waxina gudeena ku xumaana inuu iska meenan xumeen horta waxa kuma ogale waxa ku soo urinayaa mar shanaad inaan dhacno diyaar u umay dumari carruur mar shanaad laga oohina diyaar u umay laakiin bal talada Siciido taaduna sax ma taanu qabaana sax ma teenu intaan dhaxas ku imanna ma analyze karayna sideen ku gaarna taasoo baa inoo taala nin walba inoo taala taasoo baan umada kale wax laga helay ina kaliya wax soo saari karne umada taasada u weel kula tagi kartaa marka insha Allah alla dalka inoo wanaajiyo alla qulubta inoo wanaajiyo alla madaxda inoo wanaajiyo waxna inagu xumaan maayaan salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh